waxaan kaloo halkan rabaa inaan ka sheego laba qodob mid ku saabsan ardayda meeshan fadhida iyo mid ku saabsan Soomaali weyn mid ku saabsan Soomaali weyn Soomaali waxa loo baahan yahay dhamaan marti sharafta meeshan fadhida inaynu nahay dad isku duuban inaynu nahay dad hal ah inaynu nahay dad walaalo ah oo qalbiyadoodu isku wanaagsan yihiin markii ma aragtay aynu iska hornimaano inaynu nahay dad isjecel wadanka aynu ku noolnahay inaynu ka samaysano sharaf qof walba qof kale markuu ka soo horbaxo inuu dareemo qof ka soo horbaxay inuu kaliya yahay dhiigiisa ma aha inaynu kala cararno ma aha inaynu ma aragtay markaynu maama aragno ama wiil aragno ama oday aragno inaynu kala cararno waxa kala cararaya ma aha wax kale waa inaga waxa ku kala baahsan wadamada qurbaha waa inaga waxa loo baahan yahay inaynu isku duubanahay inaynu ma aragtay markastana aynu leenahay gruubyo iyo dad iyo waalid iyo dhamaan dad shacab oo isku xiran waxa loo baahan yahay inaynu ka gudubno dadka halka ku daadsan waa Soomaali dadka halka qaxootiga ku ah waa Soomaali dadka aan waxba baranayno markay wadamada shisheeye ay yimaadaan tahriibaya cararaya wadankii ka soo cararayo imaanaya wadan kale inaynu ka gudubno xaaladaas aynu u gudubno xaalad isku duubnaashi hadda muddo laga joogo 3 bilood ka hor baa waxa ka imi Soomaaliya markaan tagay qof kastaan la kulmo wuxuu leeyahay ma Turkiga ka timaada seen lagu heli karaa Turkiga inaan tagaa raba oo idinku halka u socotaan wadanka hadaynu dadkii wax bartay ka soo tagaan oo halkayna aynu nimaano yaa wadankii wax ka qabanaya marka waxa loo baahan yahay inaynu ku xisaabtamno riyada halkan u nimid inaynu wax barano maadaama wadankeenu wax barashada ka liito dib aynu ugu laabano wadankeena because daarahan dheer iyo cagaarkan dad baa dhistay idinka idin la mid ah marka waxa loo baahan inaynu ku fakirno inaynu nahay qaxootina waxa weeye inuu ka baxo qaxootinimada uu baxo meesha marka hiigsanayay mid kale waxa weeye in la iscaawiyo anigu waxyaabaha badan inaan ka hadla aan rabo waa inaynu iscaawino inuu wiilku markuu maama ka soo horbaxo wadada dhaafiyo inuu oday markuu ka soo baxo wadada dhaafiyo gabadhii wiilku inay dadku walaalo yihiin inay la iska warqabo inaan la kala daadsanaan wax ka xanuun badan male YouTube-ka markaa gashid hal video oo ka helmaysid ku saabsan Soomaaliya ama dad isjecel sidoo professor-ku noo sheegay laba qof oo ajnabiya baa waxay ka xanuunsanayaan xanuunka inagu aan dareemin ama wadankeena ka jira dad kalena way qoslayaan cudurka ugu weyn aan la daweyn karin oo Soomaalina aan laga daweyn karin waa qalbiga ka wada jirana dhamaanteen marka waxaan rajaynayaa marti sharafta meeshan iskugu timaaday inay qalbiyadooda wanaajiyaan inaynu noqono dad midaysan